بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمان أنت شركة جرائد كسوق قيب قشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلها هو قام أنت هبر قدير كديم مركي أي موقتي إفعال إيا دقائق كيني كريا حسلوني در علاض إيا عرقلادين حبسمي وصعدك iyo taabagelinta doorashada dalka ee uu hormuudka ka yahay ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble. Goluhu wuxuu soo jeedinayaa qodobadan hoos ku qoran. Kow, in loo midoobo taabagelinta doorashada dalka lagana fogaado wax kasta oo carqaladeyn karaya ka shaqeynta doorasho xor iyo xalaal ah. labo, in ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa lagu gacan siiyo dardargelinta doorashada loona madax banneeyo gudashada waajibaadkooda dastuuriga ah iyo heshiisyadii ay gaareen golaha wadatashiga qaranka. saddex, in ra'iisul wasaaruhu ka soo dhalaalo hanka iyo rajada ay ummadda Soomaaliyeed iyo caalamkuba ka sugayaan, taas oo ah qabasho doorasho hufan si looga saaro dalka firaaqa dastuuriga ah ee ay ku jiraan hay'adaha federaalka qaarkood. Qodobka afaraad, golaha hogaamintu wuxuu ka digayaa cawaaqibta ka dhalan karta haddii la isku dayo majaxaabin iyo hagardaamin lagu sameeyo howlaha doorashada ee ra'iisul wasaaruhu hormuudka ka yahay. Goluhu wuxuu hiil iyo hooba la garab taagan yahay habsabi u socodka doorasho hufan oo lagu kalsoon yahay. Golaha wasiirada ee uu madaxda ka yahay ra'iisul wasaaruhu ayayna la garab taagan yihiin hiil iyo hooba si doorasho lagu kalsoon yahay loo gaaro. Goluhu wuxuu beesha caalamka ugu baaqayaa in ay culeyskooda isugu geeyaan sidii dalka doorasho xor ah oo natiijadeeda loo wada aqbalo uga dhici lahayd, taasoo guul loo arko in ay xal u tahay khatarta siyaasadeed, mid dhaqaale iyo mid amni oo dalka soo food saari karta. baaq, goluhu wuxuu ugu baaqayaa hay-adaha gargaarka, ganacsatada, dadka ilaahay waxsiiyey ee samafalayaasha ah dhammaan inay ka qayb galaan iyo bulshada qaybaheeda si degdeg ah loogu gargaari lahaa dadka abaaruhu saameeyeen. inkastoo roob ilaahay raxmadiisii meelo badan uu ka da'ay, haddana kuma wada filna. xoolihii doonka ahaa ee abaartu soo waxyeeshay ayaa meelaha qaar laga soo sheegayaa in roobka laftigiisi oo waxyeello kale u geystay. dadkaasi baad iyo biyo iyo daawoba way u baahan yihiin, marxalad adag bayna ku sugan yihiin. marka waxaan u dalbaynaa dadka ilaahay waxsiiyey ee gargaarka inay la gaaraan dadka dhibaataysan. goluhu isagoo ka xun dagaalka ka socda magaalada Boosaaso ee dowladda Puntland dagaalkaasi geystay dhaawac, dhimasho, burbur hantiyeed iyo barakac, in si degdeg ah loo joojiyo oo samafalayaasha ama odayaasha dhaqanka iyo culamaa diinka fikirka ay soo jeediyeen iyo inta samajeclaha ah ayaan la qabnaa in la iskugu yimaado miiska wada hadalka si loo xalliyo khilaafka keenay gacanka hadalka. wabillahi tawfiiq. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.